بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا شرفت لك سودة هذا صحن صحة قروحية عافماد بإذن الله الرحمن وحرجين يا ميل والبادة فعالم كيشوكتان إن أدنى بدقبتان إلهي سبحانه وتعالى ندمانتين هايدي وذا أمان سدو إن شاء الله بإذن الله الكريم وحاربين عند الله وذاقو إن يرأو صعود كيغا مانتا عن صو صعودي هدي إلهي يراهدو maadaama lagu jiro guryaha iyo meel kasta oo yacni ay xiran tahay oo aan maaragtay gym la aadi karinin swimming pool la aadi karinin meelihii maaragtay sportka caruuraha waxba la aadi karinin iskuuladina laga dhigay in online lagu dhigto oo maaragtay guriga la joogo waxaan jeclaystay marka maadaama layna ogol yahay inaan socon karno soo jimicsan karno insha Allah inaan waxa aniga aan sameeyo insha Allah inaad la wadaago lagana yaabee inay dadka qaar qanciso qaarkoodna aysan ka helinin marka muhiimaddu waxa weeye in ay qanciso 2 ama 3 ama ka badanba insha Allah biidmillaahir rahmaan runta haddaan ka hadalana waxyaalaha ama jiimka ha ahaato ama swimming pool ha lahaato ama ciyaar la ciyaaro oo sida maaragtay kubadda cagta ama kubadda gacanta waxay rabtaba ha ahaato qof kastaba uu haddu doono oo qof wax uu jecel yahay ha ahaato waxa ugu wanaagsan anigu aan dhihi karaa ugu caafimaadka badan waa socodka waxa igu soo xiga waxa igu soo xiga iyadoo cunto fiican la cuno laakiin marka la yiraahdo number 1 biyahan siin lahaa waxaan ku soo xijin lahaa socodka in la lugeeyo waxa kalena waxaan ka dhigi lahaa number 3 meelahaas aan siin lahaa marka insha Allah biidmillaahir rahmaan aniga waxaan sameeyaa marka maadaama ciyaalkii gurigii online ku dhiganaya wax anigina online baan ku dhiganayaa marka waxaan sameeyaa maskaxdii waxay u baahan tahay maaragtay inay hawo fresh qaadato jirkii wuxuu u baahan yahay inuu kala baxo saay tahayna haddana Ramadaan baa lagu jiraa marka aniga normally markii hore waxaan basameyn jiray waan iska socon jiray markasta aan waqti helo waan iska lugeyn jiray laakiin waxaan sameeyaa markasta oo galaasyada noo dhamaadaan intaan maartay kabahayga xidho oo kabaha maartay orodka loogu talagalay intaan xidho kabahayga buudka ayaa waxaan sameeyaa waa soo lugeeyaa timerkan ku buuxsadaa in allaale intaan socon karo xaafadaydan ku dhex wareegaa gurigaygan kaga bilaaba ilaa intaan soo socon karaan soo socdaa alxamdulillah rabbil caalamiin aniga xaafadan deganahay waxaan deganahay maaragtay waqti badan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ima tusin wax dhiba iyo wax maaragtay buuqa iyo wax xaafad aad ku waaydo aad qurux badan dad aad u fiican oo quality la degan yihiin ma sha Allah tabaarakallah waxa kale oo iigu yaala fardaha oo meesha fardaha ma sha Allah 5 minutes maxay ahayd yani iyadaaba waxaad ku soo wareeganaysaa in saacad aad ku wareegaysaa haddaad rabtid haddaadan rabinina maxay ahayd meeshadaas korkaad ka daawanaysaa gudaha waxaan u geli karaa haddii maaragtay markaa show ka jiro oo maaragtay maalinta ay show qabanayaan iyo haddii markaas ilmahaygo ama caruurta ama ku maaragtay ay laysan ku leeyihiin oo kale markaasoo kalena baarantigu way geli karaan laakiin inta ka hor kale haddaa maanta xafladeena qabanaynin oo maaragtay wax soo bandhigaynin sida maaragtay fardaha loo koreeyna soo bandhigaynin ama aadan maaragtay ilmahaagu markaa tababar ku lahayn gudaha uma geli kartid silga baa ku wareegsan oo koronta laakiin alxamdulillah korkaasaan ka daawadaa ciyaalkana marbay maxay ahayd ii fuuli jireen ma sha Allah 2 kamida haddana inta waxaan koronaha loo xiray marka insha Allah biidmillaahir rahmaan waxaan rabaa inaan ku booriyo aniga marka xaafadan deganahay ma sha Allah tabaarakallah wax dhibaato kuma arko wadad wada cadaana degan waxay cunsuriyaya ma arag wax maartay saaxiiba mooyaane marka ma sha Allah tabaarakallah ilaahay mahadiisa weeyaan ilaahayna ummadda Nabi Maxamed meel kasta joogaan Allah soo wada haday rabbina hana wada sakhro marka meesha joogtid hadii aad haysatid qof kula lugeeya ama yani hadhihi yani muslim maaha kan maaha qofkii kula lugeyn karaad ogtahay inaad isla lugeyn kartaan isla lugeeya hadii gabdho saaxiibadaha aad maartay haysatid isla lugeeya wiilal hadaa haysatiin isla lugeeya hadii kala xasamayn kartaa qof aad jeceshahay yani ku kalsoon tahay sheekadiisa baa wici kartaa inta soconaysid yani baad ilaa music iyo waxa ma dhageysan karnee inaka baad yani ku soo lugeyn kartaa hadaa rabto waxa samayn kartaa ومركات إنترنت تلفونكاga dhaatadiisa kugu filan tahay waad geysan kartaa ama quraan ama maxaadiro ama wax kale oo aad leedahay yani waxaad ka helaysaa dhiirigelin baad ka helaysaa sida dadka socodka oo kale baad ka geysanaysaa waad iskaga soo lugeynaysaa
aniga badan waxaan jeclahay inaan maaragtay haddaanan maaragtay dadka darisyadayda ee maaragtay aanan la soo lugayna waxaan jeclahay inaan qof dhaho aynu isla lugayno oo telefoon isu dirno qofkaas isla soo lugayno oo isla qaadano waqti intaa isla sheekaysano saacadda badanaa waxaa fiican tahay marka inaad ku buuxsatid 45 minute saacad hadba inta adiga socon karaysid maasha allah inaad ku buuxsatid marka aniga hadda videoga waan soo gaabiyey laakiin maalintaas waxaan socday saacad iyo bar baan socday waan xasuustaa markii ugu horreysay waxaan ka bilaabay 20 minute berigii ugu horreysaan socodkay bilaabay 20 minute baan ka bilaabay san soo daali jiray labada maalmood hore waa daalaysaa lugaha ku xanuunaya laakiin soco haddaadan soconin waad curyaamaysaa maxay tahay hawadan freshka ma helaysid waad isku istaraysaysaa guriga dhexdiisii waxaa kaloo dhaca badanaana dadka cirbaha meesha la dhaho raas magaalada oo kabta marka la geliyo la kor saaro cagta halkaasaa dadka xanuunta waana socod la-aanta waxaan rajaynayaa biidnillaahi raxmaan inaad ka heli doontaan inta insha allah maxay tahay iskuuladii inaga xidhan yihiin wadanka meel kasta inaga xidhanta aan soconno dib sportka laynoogu soo furayo socda intaa socon kartaan socda fadhiga wax faa'iidaa ma laha dhammaantiin waxaan idin leeyahay khayr badan baan idin rajaynayaa rabadaan mubaarak meel kasta daafaca caalamka kala joogtaan ilaahay subxaana watacaala xifdigiisa hayna wada geliyo ilaahay hayna wada ammaansado ummadda ilaahay haynoo sakhiro gaal iyo muslimba ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa bisha rabadaan fadligeeda ummadda nebi maxamed oo dhan ilaahay subxaana watacaala ha soo wada hadeeyo ilaahay subxaana watacaala khaatuma khayr maca aliimaan allah haynagu diro xusnul khaatuma dhammaantiin ba ilaahay subxaana watacaala haynagu oofsado ilaahay subxaana watacaala dembigeenii ka waalidkeen baa allaha dhaafo wax kastaynu jecelnahay oo jahanaba wax kastaynu jecelnahay oo jannatul firdaws aclaa ugu horeysa allah inoo fududeeyo wax kastaa necabnahay oo